يسدل قاطان إلا إسكابه قف بنا آدم ورد ما يسترني بجرو قف بميلبو ماركت marka in la iskaabo in de talo iyo arin la yeesho oo maaragtay labada maskaxood maskaxda kaliya waa ka fiican yihiin in la isdhageysto marka xaajamuna ilaahay hadaayade waan uga mahadnaqayaa kaalmo badan oo aan ka gaabiyay ilaa imika aan ka gaabiyo in iyadu kabto runaantii waayo marka dunida waxa ilaahay bixiyo ubadka ugu qiimo badan ubadkiina waxa weeye dad baa dunida keenaysa ilaahay ka sokow dadkaas inta badan waxay noqotaa dee sidaad adigu ugu jahayso waxa weeye dee sidaad noloshooda u kafaalo qaado sida aad ugu diyaariso inay kaalin bulshada ku yeeshaan oo kaalin wanaagsan ay weliba ku yeeshaan oo ummadda aad ku soo beerisay aanay dee horta dhibaato ku noqonin ama naftaada aanay dhibaato ku noqonin taana alxamdulilah rabbilcaalamiin jaamacadahay ka wada baxeen saddex baa imika leeyahay ilaahay baa lehe marka tii ugu yarayd baa imika sanadkii saddexaad gelaysa labada kale inaan kuna dhaqaaluhu bartay inaantuna waxaan loo yaqaano renewable energy tamartan xagga adduunyada inuu soo socoto dib loo dhaliyo qoraxda iyo badaha iyo laga dhaliyo waxaas marka waxaan aad iyo aad maaragtay u qirayaa kaalinta wanaagsan ee maaragtay ay qoyskayga ka qaadatay xaajeemuno waxaa jirta ma aha uun sanado badan qofku inuu noolaado ama dadku ay wada noolaadaan laakiin xaqiiqdii waxa weeye sanadadaa faraha badan leh quality noocee bay lahaayeen qofka haddii de macno la'aan uu la noolaa 100 sannadood aniga waxay la tahay qiimo ma leh maha sanadada badan inaad noolayd laakiin waa sidaad u noolayd sanadada quality nolosha tabqoyskuna waa sidaas oo kale maaha uun dadku inay wada joogeen oo isqabeen oo la wada joogay laakiin de waa sida loo wada joogayna quality